shaqo adag oo aamusan lagu qabto. Ku soo dhawaada Goob Fagaro Podcast. Xaggan waxaa ka heli goobtan waxaad ka heli doontiin xikmado, khibrado iyo dhiirigelin iyo taariikh iyo sooyaal. Maanta waxaan ka heli doonaa run ahaantii mowduuc aad u muhiim ah u horseeday guusha dhabta ah dhammaan dadkii ka tegay taariikhda waaweyn. Hard work and silence. Shaqo adag oo lagu qabto aamusnaan, buuq la'aan iyo ismuujin la'aan, balse leh go'aan adag iyo dadaal kala go'ayn. Waxaan wax ka baran doonaa haddaba mudane iyo marwo sida shaqada aamusnaanta lagu qabto ay u dhisto hogaamiyaal, faylasofo iyo dad dhisay mustaqbalkooga iyaga oo hadal bannaan keeni run ahaantii. Haddaba diyaar ma u tahay in aad ogaato barato sirta ka dambaysa dhabta ah ee ka dambaysa guushooda? Haddaba han bilowno. Awoodda aamusnaantu waa ficilka dhabta ay samayn karaysid. Waxaa la yidhi goorgorku wuxuu duulaa keligiis halka shimbiraha yaryar ay koox u socdaan. Dadka guulaystay ma aha kuwa dadaal badan, kuwa run ahaantii hadal badan, waa kuwa si joogta aan ku dhawaaqin goolkooda, waa kuwa si aamusan u shaqeeya, dadaalkooda ku beera, sal uga dhiga sabirka iyo samirka, kadibna wax soo saar run ahaantii muuqda keena. Aqoonyahankii Einstein waxaa laga sheegaa wuxuu fahmay aragtida loo yaqaano isbeddelka relativity-ga isagoo oo sanado badan cilmi baaris ku dhex jiray laakiin aamusnaan mutaawada ku qabanayay. Ninkan caanka adduunka ka la yidhaahdo Elon Musk ma sheekeeyo ama kama hadlo fikradihiisa ka hor inta aysan dunida naxdin gelin. Wuxuu ku shaqeeyaa xog dambe ama daaha dambe keliya guushiisa ayaa hadashada adduunka hadasha. Haddaba maxay muhiimad u tahay in dad ay si aamusnaana u shaqeeyaan? Su'aalka waxaa muhiim ah isweydiin mudan. Maxay buuqa u dilaa dulqaadka iyo dadaalka? Su'aalahan oo maanta waxaa su'aalo muhiim ah oo maanta mawduucina maanta aan kaga jawaabi doono. Qaybteena ugu horeysa halyeeyintii shaqada aamusnaanta ku guuleystay ayaan run ahaantii isu taagi doonaa. Taariikhda waxaa ka buuxa dad badan oo ismuujin dadaalkooda aamusnaanta qowdisay. Bal ila sawiro ninka igu magacaabo Leonardo da Vinci, farshaxaniste, injineer, hal abuur. Kuma uusan mashquulin inuu dadka uga sheekeeyo, uga hadlo waxa uu sameynayo. Halka kale sanado badan ayuu run ahaan cilmi baaris sameynayay. Sawirkii qarniga ayuu soo saaray farshaxankiisa, farsamooyin isku dadayay yar. Markaa run ahaantii waxay muujisay markuu la gaaray waqtigii saxda ahaa wuxuu dunida tusiyay Mona Lisa, sawir weligiis lumeynin. Halka Stephen Jobs ma aha nin hadal badan oo isku faana, waxaan ka hadlaynaa waa galbeedka. Inta ugu badan dadkiina ku mashquulay inuu shirkadda weyn Apple ka dhiso meel cidna wax kasba yeelin. Wuxuu sameeyey wax aan run ahaantii la filanay, wuxuuna isbeddel ku sameeyey dunida teknolojiyadda. Haddaba sidaas darteed fariintan cad waxay ku socotaa run ahaantii ama waxay laga fahmi karaa guusha dhabta ah waxay timaadaa marka aad hoojiso dadaalkaaga adigoo hadal aan keenin oo aamusan ku shaqeynaya. Qarankaagu ha sameeyo
bas adiga qalinkaaga isma qashiin. Hadda waxaan ku eegi doonaa in mawduucina maanta falsafada aamusnaanta. Marka hadalkaagu badan oo ficilkaaga dilo, haddaba suu ku dilaya hadalkaagu ficilkaaga wax soo saarkaaga. Falsafooyinkii hore waxay fahmeen muhiimadda aamusnaanta. Leon Tusi oo ah nin u dhashay Shiinaha wuxuu yidhi qofka runaantii hadalka badan waa qofka wax aqoonin. Qofka hadal badan waa qof maanta laga bilaabo qofka hadalka badan waa qof aan wax aqoon. Halka qofka wax yar yaqaana ma hadlo. Qofka wax yaqaan ma hadlo. Waxaa jira marka aad yoolkaaga dadka uga sheekayso, maskaxdaadu waxay dareemaysaa farxad la mid ah adiga oo shaygii sameeyey ama hore u sameeyey ama u guulaysaba. Taasi waxay dilaysaa rabitaankaaga inaad si dhab ah u waajahdo shaqadaada. Dadka falsafada saasiin waxa ay aaminsan yihiin in aamusnaantu ay dariiq guul lagu galahaynba. Hadduu qofku hadlo inuu hayn guul weyn. Waxaa la dhahaa badanka hadal yar iyo ficil badan waa sirta guusha. Hadal yar iyo ficil badan waa sirta guusha. Miyaadan dareemin in haddii aad aamusto oo aad shaqadaas si dhab u waajahdo qarsoodi ku samaysid ay natiijadu noqonayso mid ka yaabisa dadka kale. Qodobkeena saddexaad waxaan ka hadli doonaa ama dul taagi doonaa xiimadii hore ee aamusnaanta, qaabka ay u qeexeen ama u qiimeeyeen dhaqamada Afrikada, Carabta iyo Aasida ayaa dhammaantood qiimeeyey shaqada aamusnaanta lagu qabto. Xikmad Soomaaliyeed ayaa tiraahda dadaalka ayaa go'aamiya natiijada. Xikmad kale Carabi ayaa tiraahda marka hawshu ay dhammaato hadalku macno male. Waxaa jirta dhaqan kale oo laga soo guuriyo Japan oo tiraahda waxay sameeyaan tababar sir ah si aamusnaana ay isku diyaariyaan. Waxay keliya lagu gartaaba guushooda. Guushooda ma lagu garta inay shaqeynayeen. Haddaba waxaad muhiim ah mudane iyo marwo waxaa u baahan tahay in aad dadka maanta inaad dadka aad u sheegin uga sheekin shaqadaada. Aad qabanaysid suu bixin kuwa soo bixi ma kuwa weli aad qaban. Waxaad u baahan tahay wax ugu wanaagsan qaban karto maanta waxa weeye inaad keliya natiijadu dadaalkaaga isku diyaarisid. Waxaan soo gaarnay qodobkeenii afraad guusha casriga iyo awoodda shaqada aamusnaanta lagu qabto maxay yihiin. Dunida casriga ah kuma guulaysan kartid ama kuwa ku guulaystay kumaynay waxay sameeyeen waxa loo yaqaan dadaal qarsoodiya keligood yaa sameeyeen. Waxaan soo qaadaynaa ninka Michael Jordan wuxuu tababar ka bilaabi jiray subaxii hore ka hor inta aysan ciyaartooy kale ay iman tiraaka. Waxaa la yidhi kama fiicnayn ciyaartooyinka kale balse waxa uu qabtay waxa aysan iyagu ay qaban. Maadaama hore soo guuray hore u shaqaystay isagu kama fiicnayn laakiin effort ku sameeyey dadaal ku sameeyey yaa ka fiicnay dad kale. Shaqada dhabta ah ama shaqada adag shaqada aamusnaanta lagu qabto ayaa run ahaantii saameyn yeelata. Jeff Bezos run ahaantii nin caana Amazon shirkadda weyn Amazon wuxuu dhisay kuma usubin inuu dhiso inuu isfaaliyo. Waxa uu sanado badan aamusnaa oo u shaqaynayay ka hor inta uusan adduunka la iman isbeddel weyn. Sun Tzu waa nin aqoonyahan u dhashay Shiinaha. Waxa uu leeyahay falsafada dagaalka ayuu leeyahay. Wuxuu yidhi jaranaalka xanta badan ila fahminta xanta badan dagaalka ayuu horseeda inuu fashilo maadaama kan hadal kan dhacayba waa la fashilayaa leeyahay. Haddaba qofka guulaysta ma aha qofka buuqa badan ku sameeya waa qofka shaqada adag
ku sameeya ama nacam runaantii mugdiga ay ku shaqaa qofka ahayd shaqada badan ka helaa. Waxaan soo gaarnay qodobkeenii shanaad. Qaybtan waxaan ka heli doonaa sirta inaa naftaada la yaabto. Naftaada inay ogaato shaqada inay bal ka waran ama bal ka fikir haddii aad barato xirfad cusub laakiin aadna cidna u sheeginba. Maanta laga bilaabo 3 bilood kadib waxaad baratay. Qof walba wuxuu la yaabi doonaaba run ahaantii waa run wax cajiibay wax adiga aad ogaatay sirta ka dambeysa. Waxaa jira maxaa imanaya waxaa jira farxad weyn oo ku jirta marka aad naftaada la yaabto. Waxaa la dhahaa hadal yar ficil badan. Haddaba su'aasha muhiimka waxay tahay ma diyaar ma u tahay in aad bilowdo shaqo adag oo aamusan. Waxaan soo gaarnay gunaanadkii iyo gabagabadii mawduucina maanta. Aamusnaanta ka dhigo hubka sirta waa muhiim weey. Dadka taariikhda galay guluhooga aan ku guuleystay kuma aysan gaarin hadal balse waxay ku gaareen iyagoo aamusnaan shaqadooda u qabanaya. Buuq wax ma dhiso. Aamusnaantu waxay dhistaa guushaada. Haddaba laga bilaabo maanta ka hadli wax aad rabto ee samee. Shaqadaada adag ha hadasho. Adigana aamusnaantaadu ha noqoto hubka ugu weyn ee isticmaalaysid. Xagani waa Gufugara Podcast. Haddii aad ka heshay like noo saar, subscribe noo saar, kana faa'iidayso. Waxaan ku leeyahay kulan dambe oo xiiso badan ayaan ku rajeynayaa. Intaan ka bixin waxaan su'aal niga tagi lahaa. Ma ila qabtaa fikradan? Maxaad ka aaminsan tahay shaqada aamusnaanta lagu qabto? Nagu soo noo reeb faalo. Waa mahadsantihiin.